Gabadhaani waxay akhrisanaysay xilli dambe buuggeeda. Si lama filaan ah ayay waxay ku maqashay shanqar ka soo baxaysa dhanka iyo derbiga. Waxay aragtay in la isku dayayo in la soo furo albaabkeeda. Sidaa darteeda waa ay cabsatay waxayna hoos gashay bustaheeda. Iyadoo sidii u cabsanaysa wax yar kadib waxay iska qaaday bustahii. Waxay fiirisay hareeraha laakiinse cidna waa ay ka weysay. Waxay qosol ka maqashay sariirta hoosteeda. Waxay si tartiib ah u soo fiirisay sariirta hoosteeda qaanada ku hoos taala. Laakiinse markii ay furtay waxba waa ay ka weysay. Markii ay waxba ay ka weysay, haddana waxa ay dareentay in gadaasheeda qaanada ku taala in la furayo. Waxay aaday dhankaayo armaajada si ay u soo hubiso waxa ku jira. Iyadoo sidii ugu socota waxaa hal mar soo dhacay taleefankeedii. Waa ayna isku naxday. Balse wuxuu ahaa gambar ay iyada ku xiratay. Waxay dib ugu laabatay armaajadii si ay u fiiriso. Laakiinse waxba waa ay ka weysay. Si lama filaan ah waxay cod ka maqashay gadaasheeda. Markii ay fiirisana waxa uu ahaa boonbala dul saaran sariirteeda. Iyadoo la yaaban cidda soo saartay boonbalahani sariirteeda ayaa waxaaba soo fiiriyay boonbalihii. Waxay isku dayday inay cararto ayna albaabka ay ka baxdo. Laakiinse nasiib xumo albaabkii waa uu u furmi waayay. Markii ay gadaal ay soo fiirisay sariirtii waxayba ka weysay boonbalihii. Laakiinse waxay cod ka maqashay dhankeeda midig. Waxa uuna ahaa boonbalihii oo iyada u dhawaaqay. Markaana waxay isku dayday inay u dhawaato boonbalahani waxa uu yahay ayna daawato.